بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وان إذن السلامي كسو دوادا برنامجكي سرطة وحبرشدة maxaa keenay in mar walba hal arday ama laba arday ay ku guuleystaan kaalinta koobaad ardayda kale miyay ka fiican yihiin mise way ka aqli badan yihiin maanta mowduuceena waxaynu ku soo qaadan doonaa qaabka uu ardaygu u gali lahaa kaalinta koobaad ardayda kaalinta koobaad galay waxay hayaan sir aanay hayn ardayda kale sida awgeed maanta waxaan idin soo bandhigi doonaa sirta aad ku gali karto kaalinta koobaad sirta koobaad cashirkaaga waa inaad dhigato 2 jeer waa sirta ugu muhiimsan ee ay sameeyaan ardayda gala kaalinta koobaad khaladku waxa uu ka dhacaa semesterku marka uu bilaabmo ama marka ay waxbarashadu furanto ardaygii markaas ugu horeysa cashirkii oo bilaaba waxa dabiiciya hadii ay tahay markii kuugu horeysay cashirka dhigato inay wax ka hor imanayaan oo wax kugu adkaanayaan laakiin ardayda kaalinta koobaad gala maxay sameeyaan inta fasaxa lagu jiro ay sii dhigtaan cashiradii la dhigan lahaa semesterka soo socda sida awgeed sirtaasi waa sirta ugu weyn ee ay sameeyaan ardayda kaalinta koobaad gala ardaygu hadii uu helo fasax waa chance weyn oo uu ka faa'iideysan karo inta badan ardaydu waxay isweydiiyaan markay fasaxa helaan fasaxa maxaan kaga faa'iideysanaa qodobka ugu horeeya ee loo baahan yahay inaad kaga faa'iideysato hadii aad fasax hesho waxa weeyaan inaad sii dhigato casharada soo socda semesterka dambe sirtaasi oo kaliya hadii aad ku dhaqanto waxa aan ku kalsoonahay sanadka dambe ama semesterka dambe inaad gali doonto kaalinta koobaad insha Allah ta'ala sirta labaad waa marka aad ku jirto klaaska ama marka aad cashirka dhiganayso fasalku waa meesha ay ka soo bilaabanto guusha ardaygu sida awgeed sida aynu hore uga soo hadalay waxa loo baahan yahay ardaygu marka uu xiisada dhiganayo in uu soo jeedo oo uu focus siiyo cashirka uu dhiganayo sida aynu kaga soo hadalay xalqadii hore ha ka mid noqonin ardayda fasalka ka dhigta meel lagu ciyaaro ama ka dhigta meel internet lagu isticmaalo marka aad fasalka ku jirto waxa aad ka soo qaataa inaad haysato fursad aad u weyn waayo waxa aad helaysaa qof cashirkii aad u baahnayd ku sharaxay waliba laga yaabo kugu sharaxaya luqadaada ama afkaaga hooyo sida awgeed inta fasalka lagu jiro waxa loo baahan yahay aamusnaan dhameystiran iyo inuu ardayga maskaxdiisu ay soo jeedo qodobka saddexaad waa marka aad guriga ku soo laabato ee aad xiisada ka timaado inta badan ardaygu cashirka si fiican buu fahansan yahay maskaxdiisana uu ku sii jiraa sida awgeed ardayda qaarkood waxay sameeyaan weeldayalsadaan hadhow baad akhrin doontaa meel buu iska dhigaa cashirkii waxa looga baahan yahay ardayga raba inuu kaalinta koobaad galo cashirkii maanta uu soo dhigtay ugu yaraan 10 daqiiqo inuu muraajaciyo oo cashirkii soo akhriyo waynu ka soo hadalay xalqadii hore qaabka ardaygu cashirka uu akhrisanay ka uu usbuucu ama wiigu dhamaado waxa loo baahan yahay ardaygu marka uu wiigu ku dhamaado wiiga caadiyan waxa aad soo dhigan doontaa casharo ama koorsi kala duwan sida awgeed marka uu wiigu dhamaado waxa loo baahan yahay inaad qalin iyo buug cadaana aad soo qaadato oo soo koobto chapter walba oo wiiga soo dhigatay kadibna aad meel dhigato arintaas waxay ka caawin doontaa in chapterkii uu maskaxdaada ku haro mar dambana aanad iloobin marka ay bishu dhamaato labada maalimood ee ugu dambeeya bisha ardayda kaalinta koobaad galayay waxay dib u soo muraajaciyaan oo dib u soo akhriyaan su'aalihii ay ka diyaariyeen chapteradii tagay toddobaadadii la soo dhaafay sida awgeed bishu marka ay dhamaanayso waxa loo baahan yahay ardaygu casharadaada inaad ka war hayso oo su'aalihii aad ka samaysay casharadaada aad dib u soo muraajacayso toddobaad ka hor maalinta imtixaanka waa waqtigii ugu walwal badan yihiin ardaydu adigu maadaama aad soo samaysay talaabooyinka aynu hore u soo sheegnay maalinkaasi ama toddobaadkaasi waad faraxsan tahay waxa la yiraahdaa ardayga kaalinta koobaad galayay waa toddobaadka uu fasaxa galo halka ay ardayda kali ay ka walwalsan yihiin imtixaanka ay ka fikirayaan adigu kaliyaata waxa ku taala toddobaadkaasi imtixaanka ka horeeya in aad kaliyaata aad soo muraajacayso chapterkii iyo waraaqihii aad soo koobato qaala ta'ala fa idha azamta fatawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون طبعا وحا أنصر شيء نوردن وحا أهايان أسبابتي وحا اللو باهيهي قفك مؤمنك أرضيك مسلمك وحا لقربا إنو إلهي تلسارتو هدي أي كاقو أنتهي إن أتكالين تكوباد أتقشو وتكالين تكوباد أتقشو أرضي دادا وحا لقربا تلادا إن إلهي وليبتو أديكو أسبابتي الله إيمانيا haddana fatawakkal ala Allah daba waxaan isku daynaa inaynu ka jawaabno su'aashii aynu hore isku weydiinay ahayd maxay tahay sirta ka dambaysa in hal arday ama laba arday mar walba ay galaan kaalinta koobaad su'aasha jawaabteedu waxa waxay yiraahdeen cashirku waa sida cuntada oo kale waxaad ka warantaa imika qof
maalin walba saddexdii waqti intii uu cuni lahaa urursaday meel dhigtay oo leeyahay bishu markay dhamaato ama 4 bilood kadib hal mar wada cun ma cuni karaya jawaabtu waa maya ka daba waxa lamida ardayga maalin walba aan waxba akhriin cashirkiisii urursanayay maalinka la yiraahdo waa imtixaan isku dayay inuu hal mar xafido miyuu xafidi karaya jawaabtu waa maya hadaba sirta ka dambaysa inuu ardaygu kaalinta koobaad galay wax kala maaha marka koobaad waxa weyn ardaydaasi sidaan soo sheegnay waxay cashirka sii dhigtaan inta aanan lagu soo noqonin jaamacadda ama iskuulka marka labaadna horta waxay marka koobaad soo galaan iyagoo cashirkan la dhigi doonaba garanaya marka labaadna waxay sameeyaan way kala yareystaan cashirka sida cuntada oo kale maalintii marka la soo dhigo way akhriyaan intaas toddobaadku marka uu dhamaadana way soo koobtaan meel bay dhigtaan bishii marka ay dhamaatana way muraajaciyaan imtixaanka marka la galana kaalinta koobaad bay ka galaan waxaan filayaa sirta inaynu fahanay dhamaantiina waxaan idin rajaynayaa waxbarashada inaad ku guuleysan doontaan. Assalaamu calaykum.